iskugu imaanay fadhi weyn oo raafka ba ka dhacay waxaan ku qaadnay khadra cali cabdi raage ugu min rabaan u qaadanay tolka wuu qaaday way mahadsan tahay tolkana waa mahadsan yahay raafka khayr Allah siiyo dugaashado midnimo wayn lagu dadaalahay dugaashado midnimo wayn lagu dadaalahay dugaashado midnimo wayn lagu dadaalahay wax maanta cid reer afkaabe oo naga maqal ma jiro waad maasantiin saad u maateen fadhiyahana tolka wuxuu ku fiican yahay saragan fadhigan oo kalena mabxumabo saaka waxaan u imaanay waxa tuu adduunka oo dhan ka jiro waxa khayrka wuxuu qabo qosol ku dhan waxa adduunka oo dhan ka jiro maxay ummadda nala degan ama aan ka dhalanay ama ogaadeen ama cawliyahan aan hadda maanta anaka ka dhalanay maadaama duqi reer afkaaba aniga aan nahay cawliyahan inta xubina gaarska jirtu taagay soo ma ogdiin dad badan oo hawliyahan oo qabiilooyinka ka mid ah haddana qabiilooyinka ugu tira badan baan ku jirnaayo sagaalka dabe cawliyahan reer cali reer afkaaba hadda ku muransan inuu ana ka badan iyo ana ka badan anaga reer afkaabe waxaanu taagneen kursiga dhadhaab dagaalkiisa waxaa soo ifbaxda maanta oo koow inta ku soo tirsanto processka cawliyahan soo galay qoysaska reer afkaab ka mid yaa gabdhihii cawliyahan ku soo biirtay maxaan u malayn maanta arrintaasay reer afkaab haddaan nahay waan soo dhaweynaynaa haddaan ani duqi reer afkaabe maxaa yeele khayrka wuxuu qabo qosol ku dhan waxaan rabnaa haddaan reer afkaab nahay oo duqeydii aad tihiin qoyskii wax rabay reer afkaab reer fuqududub way ka soo gudubtay saaka afkaab 12 qoys way joogtaa reer fuqududub baan rabnaa gabadhoodii wixii ay ayaka saaka inay reer afkaab u sheegtaan bay idmadeen oo ideen reer afkaab gogol noogu dhig waxaan qabnay gabadha anaka way naga soo gudubtay inaan afkaab u dhiibno aan rabnaa marka waxaan soo dhaweynayaa duqa Cabdullaahi la gure oo Cabdullaahi beriye ku magac dheer Cabdullaahi soo dhawow reer afkaab waad maasantiin ugaaska intuu sheegay fuqududub baa u dhiibay oo codsi u geystay waxaa la yidhi reer afkaab baan rabnaa inoogu yeedh afkaabna waa loo yeedhay wuuna imaaday suu u imaadayna afkaab uu ku mahadsan yahay annaga haddaan fuqududub nahay oon isxuuraanay oon hoos iyo korba isku fiirinay waxaan idhi warniyow accountinga la sheegay intay imaatay wax gabaroo reer afkaaba gogol legto soo istaagtay ma jirta waan is weydiinay warbargaal aan foofno afkaab uu fara badan yahay in wax laga dhexlaa laga yaabaa waan weynay ما نعبسنين تلقى أنا غير أفكار بس كوسو دي من يقاس كانوا معنا خضراء علي عبد الراجي ما شاء الله هو يدين وخديجة بول خير قوري أنا غير أفكار بقول أصلا هذا أنت بقطوب من قبل أصلا أفكار بكرنا معاه قبل عولان ورنا بكل يوم وقادم وذقوقين أنا كم أنا غرب بلا يابل أنا كم أنا غرب وانقرن ويني قبل أصلا ونا reer afgaabow waad mahadsantihiin nala qaada nala qabta wax noola doona maxaana maaja ka baxsanayn afgaab wuxuu ku heshiiyo fuqudub dhaxdu kaga jira gabadhaasaan wadnaa duqoydii reer fuqudubna way fadhiyaan way iiga dambaynahayaan hadduu gudbiyey intaanada kale maxaan dadku u daalinaynaa waa waxaan ka soo tashanay oon isku ogolaanay inaan reer afgaab ku soo gudbino gabadhaas aad dhasheen haddana la diidin ka tirsan tuulada la yidhaahdo afweyne kana tirsan gaaris labaduba rog iyo raas ku leh uu dhalay ninka jiibka la yidhaahdo cali cabdiraag weeyaan midaan hor keennay golaha reer afgaab
waxaana baryaynaa insha allahu gabadhaas inna laga qaado marti waxaan u noqonnay allah laakiin haddana waxaan u soo gudubnay reer afgaab martina maxay ahaan jirtay in loo taliyo reer afgaab in loo taliyaan diyaaruna gabadhaana nalala qaado insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer afgaaba waad mahadsantihiin khayr allah idin siiyo saan rabnay baad yeesheen waad noo imaateen waa idin yeerannay waxaan rabnay inaad nala qaadaanna meeshaan u taaganna haddaayo hoos xan baan isweydiinay waxaan nidhi cawliyahan haddii uu gabdhahan ay wada socdaan midda soo gelaysa middan waay sababta waxaa waaye mid walba qolo walba oo cawliyahan 2-3 baa ka taagan annaga midoo keliya noo taagan marka inteenna reer afgaab haddaan isugu tagna innagaa soo gelinayna marka waa mahadsantihiin gabadhaasaan idiin keennay nala qaada laba curad baa meesha jooga curadkii cabdillah haraale iyo curadkii afgaab soonqaad curadkii afgaab soonqaad wuu hadlay waa ogaaska curadkii cabdillah haraale baan u jeedi waaye laakiin masaa hadalka u horeen baan u soo dhawow sidaasaan ku faraxsanoo wax macaan baa maanta i hor yaallaa wax macaan yaa i hor yaallaa maxaa waaye wax macaan i hor yaalla in cabdilxasan baa geel laga qaaday baa lihi asagoo iimay joog yaa geeli oo aata jooga la qaado geeli markii la qaaday oo galabtoo kale la qaaday baa subaxdii dambe faraska la durooli waxaa layidhi aad meji uu jireeyey sayidka aad casarkii baa loo imaaday li markii casarkii loo imaaday geeli waa la qaaday sayidii ina kiciyuu yidhi aan raadina geeli meji yaa jooga haddee ma og tahay daraawiishoo dhan baaba joogtee moogta daraawiishoo dhan yaa joogtee saas ahaydo geeli lala teg baa la quusay bas wuu geeli raadkiisi baa la iska qaaday habeenkii baa la dhaxay casarkii dambe markii la socdo yuu arkay geeliyo bidix haar socdaa layidhi ruuxa ma geeli baa meejan haddee waa meeji cidlada ahayd ee dagaalka ka jiree muxuu ahaa baa layidhi ma og inagudo alla waa sayidkii iyo waa kan fardiisii oo wiilal ree afgaabaaba geeli wado wiilal ree afgaab yaa geeli wado gabay dheer buu soo tiriyey laakiin wuxuu ku qatimay ma ogtahay baahaluhaa ninka dabkaanadii baktiyey yay berberiyeen boobtada ree afgaab aniga hadda gabadha khatra cali cabdiraaga ah dabkii ree afgaabay damay bay berberisay maxaa yeelay si ay tahaybo reer afgaab meelahoo dhadhaab la yidhaaho unbaan saa u tuuranahay oo annaguna aan saa isku haysannaha wax kale oo mabda sinita gafana madaxweyne wax kale isbika gabadh wax kaloo aan sheegayna male gabadha maxay aqligii reer afgaabo idil ka dansanaabay maanta noo keento ma maqasheen gabdhaha ogaadeen baa iskale kursiga sagaalka dabay cawliyaan baa iskale sagaalka dabay cawliyaan yaa iskale koontiga gaaris odil baa iskale waa kow intuu jiray sanadkan unbaa hadda 15 gelaynaa samo 15 sano gabadh ree afgaab waa imaatay male laakiin gabdhaha culimo ku 2-3 bay isku leeyahay ilma adeer marka anigoo magaca ree afgaaba oo ree aadan ah oo ree afweyne ah waan qaaday gabadha halila qaado السلام عليكم وكبر حضرتك هذا وحي وراف قابل ربيب وكو هذا هذا الجعل ومالنا هيا موقي وحكا لو ماشا لمن او لغو هالله ما جرتو خير افقاب وحو عوليها ربو الربا وحالو مالي وحوغا وين كير حشود بدنا نو مالي عوليها وانا كبدنتين وادو بدنتين dad yaryar oo idinla dhashay oo idinka garab inaad u noqotaan oo wax walba asaga aad ku asuntaan rabaa jiray bal waxoogaa lugta gadaal u dhigan haysa ma ogi woman reeb kamaana dherganayn dadkeedina waanahay gabadhaas reer afgaab waxay la tahay waan qaadnay waxaada le oo meeshan lagu dadbi karo ma jiro annagoo cawliyahane wuxuu yidhi agoon tolkeed ma la xeera baa mase waa ka xeer gabadha cawliyahan ee taagan bay la xeerta geedka cawliyahan
gabdhaha lagu reebaya haddii gabadhaanada lagu reebo sagaalka damac cawlihan ay reebaan waa gaarkeeda laakiin reer afgaab haddaan nahay gabadha waan qaadnay maqnay isha iyada wayba naga dannayd siduu qaasin sheegay baana ku raacsannahay haddii cawliyahan qayb ay imaato oo cawliyahan wax qaybsaday imaado cawliyahanka qaybsameen baana ka midnahay gabadheenna waa siduu qaasin sheegay kabtaas ama lagu reebi ama lagu soo qaadi laakiin annaga qoys markaan nahay gabadheenna waan qaadnay horta qodob kale aan ku dari rabaa markaa waxaan ku dari rabaa gabadhaas gadaasheed gabar reer afgaaba hadday imaato lama qaadi karo haddaba ogaada reer afgaaba waad mahadsan tahay reer afgaab arrin fiican oo wanaagsan baa ilaahay waafajiye wayna naga maqneed haddii ilaahay waafajiyeyna iskumuu khilaafina wuu qaate annaga horta reer afgaab haddaan nahay waa sidaa hadda odayga uu ku dhawaaqay wax gabaroo dambe oo naga daba imaanaysa ma jirto midda kale cawliyahan 10 sano koontida ay jirtay cawliyahan baa socdo gabdhihiisa ay socdeen annaga maanta kowna on isa soo qaana waxaa jirtaa cawliyahan geedkiisana hataa gabadha annada ani lagu reebo ma rabno geedka cawliyahanna hataa ani lagu reebo ma rabno maantaan madaxa soo qaadno kowna cawliyahan ma dhisayna taxada mara waa uguba maante gabar afkaab soo qaado istaagtay waa ugube taxada mara jaraaciya dadka isaye raacadu baa ordaaye oo dhaqan baa ordaaye afgaab soo qaad gabartii soo istaagtay waa loo koowe ilaahay waa shirkad ilaahay waa shirkad ilaahay soo geli ilaahay iga aqbal oo u aqbal iyadana ilaahay iga aqbal oo u aqbal iyadana اللهم صل على النبي سيدنا محمد gabadha asaytu afgaab soo qaado waan qaadnay mila qaadeen gacmaha kor u taaga gabadha juu bulsho waa qaadnay gabadha weed baan ahay aabaheed baan oo ahay abti markaa gabar ka nasiib badan oo reer afgaaba maba jirtaba bishaar xareed iyo cabdulaahi beriye iyo mukhtaar cilmooge odaytinimada isa ay weyne iyo ibraahim dhuwow waaskii reer afgaaba intuba gabadha ay ehel yihiin afgaabka intiisa kale waan ku daba kaxaynaa horta saas oo dhammaatay midda kale annaga kama yeelayna suu sheegaya waa runtii hal idin reeba waxaa intaa waan xishoonaynay war bal gabdhahan in lala kala hadlaan lahayn cawliyahan wuu sii badin wuu ku sii daldali midda annada lama reebahay sababtoo cali 3 baa ka taagan annaga senatana uma taagnin gafanana uma taagnin xataa haddii la dhaho waxaa la qaybsado gafanaha waa abubakar annaga gabadha annada noo taagan mana reebayna wayna nasiib badan tahay wax aan annagoo dhanba arki weyne ayay keentay waxaa la dhahaa daaroodka waxaa ku jirtaa 4 faarax isku xidig wayaal habeen bay wada dhasheen faarax sabatar faarax ogaas faarax shirwac iyo faarax garaad waana 4 laandheeraha daaroodku ama reexaan oo dhan waa faarax ogaas ree afgaamna faarax sabatar ugu farbadin waa ogtay faarax shirwac iyo faarax garaadna waa dhulbahantiya ma jeerteen gabadhaas xidig ree afgaab oo khayr labayno yay noqotay waxaan anaga moogeyn bay noo keentay oo gab waxaan isku dilaynay MB bas war MBna levelkeena ma ahaynba waxay ahayd inaan gafana ka bilowno ayadaa noo bilowday insha Allah sanadii iyo gafanana way soo bixiyeen way maasan tahay khadra nasiib baan ugu daray khadra cabdi cali raage khadra nasiib baan ugu daray anigana mana weyna soo galiyay insha Allah maxaa yeelay way arinta maanta uu reefka uu fadhiyo waa farxad aad u weyn way khadra cali cabdi raage waxa weeye waxaan leeyahay abba qaalna ugu dhalay maanta waxa weeye ilaahay arintada khayr ha ka dhigo waa xubin naga maqneed xaqiiqatan waxa weeye weli hadda koor maxaan leeyahay reefka oo xubinta uu muusa istaagin maanta waxa weeye ree afgaab guul weyn bay u tahay arintana waan soo dhaweynaynaa aabaheedna cali cabdiraag waa ninka maartay carruurta kabaqdhahan ugu gooyo weeye waa aabba aad qaali oo ah waa qoys ree cali cabdiraag qoys qaali aad waa weeye marka xubinta ayada waxa weeye waa xubin aan ku farxsannahay waan soo dhaweynaynaa waana qaadnay khadra cabdi cali raage waana qaadnay garab baana arinta ayada aan isku nahay reefka wadaan nahay soo dhaweeya Yusuf Afgaab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رافقاو ما شاء الله ما أنت وفرحت وين رافقاو وسكو ماضي وهم من رب قبل أي صادم ماضي أد بنوسو دوينا يا أنا جا وقوه الله هيو أفكا
ree afgaab qaasatan haddana ree yuusuf qadra waxaan leeyahay insha allahu waa siday u tilaabsatay kursiga way fadhiisan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ree afgaabow assalaamu calaykum waad salaamantihiin mujamac dhammaantiin afgaab ahaan wada dhalashadii islaamnimadii buudhiganimadii inta waan horta idinku salaamahayaa intaa kadib salaan labaad waxaan sii salaamahayaa qoyska gogashan dhigay ee reer aabbahay reer fuqudido baan mid khaas oo godob sii salaamahayaa intaa waa iga salaan inta kale waxaan ku dari waxaa la yidhi kayrkaa wuxuu qabo qosol waa ku dhan yahay kursigan ogaadeen baa u taagan cawdaq baa u taagan cawlyahan baa u taagan somawadal baa u taagan ogaadeen baan idhi haa yaa u taagan marka hadda waxaa weeye meel waxaa la yidhi haddaad ayadoo dadka illa yahay aad tagto adigana il baa la istiraa marka arrintan ayada waa soo dhoweyn goox haddii la galo haddii aad wax khalad u aragto ani dadka hadallaha ka cabsada meeshaas waxbaa ka dhiman baan dhahaa haddii ay dhammaytiran tahayna kabahan u geliya inaan u indhaleeyaan aad u jeclahay arrintan kabahan u indhalayn haddaad tihiin afgaab sunqaan nimankii hawiye markay farmaajo keri waayeen iyo warbixin yar ka bixinaya isagoo la waraysanaya wuxuu yidhi farmaajo shidaalku ma socdo wareer ma qabo meeshiisaasuu ku jiraa maxaanku idhahdaa wuxuu yidhi shidanaaba shidan micnaha ninkii wuxuu yidhi ama ka hadal facebook ama twitter wax ku soo qor ama idaacad fariiso hawiyow wuxuu yidhi ninkaan nimaad riixi kartaan ma ahee shidanaaba shidan marka hadda afgaab warkiisa waxaa iga soo baxday war meeshaa weynaga dansaneeda haddaan indhaha soo kala qaadnee shidanaaba shidan marka gabadha walaasheen allah barakeeyo annaga waxaan nahay wixii la dhihi jiray war maxayd ninkii haraba cabdallow dareer nin kaloo dambeeyaba cabdallow dareer marka anigu waxaan la mid ahay fuqududubkii dhahay gabadhaan wataaye ha la ila qaado ree afgaaw waan isalaamay yeeritaankii saaka ugaaska iyo geedkiisa aad soo ajiibteen oo naloogu yeeray gabadhan walaasheen qasraac cali cabdiraage haddaan ku hadlo afka dhallinyarada beesha ree afgaab qasra maanta maalin nasiibkeeda ka fiican ma jiro haddaan nahay ree afgaab geedka cowlyahan yaan insha allah annagoo maaragtay afgaab geedkiisa wada soconno duqeyda yaan applicationkeeda geenaynaa waxaana leeyahay maaragtay qasra walaalay soo dhowow tol wanaagsan oo aad u fiican baad ka dhalatay intay gabdhaha cowlyahan maaragtay ay qabaan baad qabi waxaana rajaynaynaa maalinkan maaragtay cowlyahan u tagnana maaragtay codsigaa waan maanta annaga maaragtay kursi haddaan nahay ree afgaab kursi gabana uma taagnin kursi senat uma taagnin waxaa cowlyahan uu qaybsanayo oo ku saabsan woman rep yaan rabnaa maaragtay maanta inay mudnaan nala siiyo oo nala xuso oo gabdhaha kalena nalaga reebo oo gabadhaanada qatra xildhibaanada laha qadraac cali cabdiraage ayaan isku raacnay meeshan hadda maanta aan ku sugannahay gabadhaasaa ma noo taagan maan isku raacna gacanta kor u taagan aan isku raacna kala ogaane waxaa noo hadlay duqa adeerkay baa jooga maxamuud oo noo hadlay af ree saalax hadda kuma hadli rabi waxaan ku hadli rabaa ree afgaab baan ku hadli marka waxaan leeyahay arrintan horta qaadistan gabadhan abtiyow caliow iyo ugaaskii reer fuqdudub iyo duqeydii mahad gurxan dhammaantiin ree afgaab waad maqlayseen ree afgaab gabadhaa wuu qaaday saacaddan laga bilaabo gabadhaa ree afgaab bay u taaganta oo ma taagna reer fuqdudub way soo dhaaftay jaranjarada marka maasha allaahu aad baad maaragtay u qiimo badantihiin allah idan barakeeyo gabadhaa reer afgaab bay u taagan tahay reer afgaab baa haddii la reebana laga reebay marka sidaa ugu kalsoonaada reer fuqdudubow waxaan dhahay calaamad fiican waa calaamadda maxaa dheh wax kaa maqnaa hadduu imoodo waa calaamad macnaha danaa ku jirtaa inay istaagto way heshe iyo way waysa ma aha
istaagistaasaa wax weyn ahaa waa mahadsan tahay ree afgaab u keenaa aabbaheedaan intaa ku dardaarmiyey gabadhana abti baan u ahay chairmankii cabdillahi haraalena wuuba hadle waxaan ka codsanay chairmanka cabdillahi haraale guddi intuu qaato ka gees inuu gabadha culeys saaro chairmanow hadalkaas qaado dhulka inaad soo wareegto oo tiraaho haddee waana la hayaa marka waxaan dadka hadleen un baan ka mid ahay gabadhaas ayada waxaan ka codsani siyaasi hadday noqote kuuraheeda galbeeday keeni sababtata inta ugu kuura badane waxaa la dhihi women reebka ree afgaaba awe inta galbeed markaan ka shaqaynayno ayadaa aad looga rabaa soo kuuraheeda afweyne ma ahan karo abtiyow kuurahaada galbeedaad keeni waxaad keeni teetu baad ka maamuli siyaasadaada assalaamu calaykum mahadsan yahay ugaaska chairmanka cidda reeb adeerkii cabdullaahi beriye dhammaan dhallinyarada annaga hadda afweynahan kusoo qaadnay gabadha reer fuqduuse odayaasha ay sheegeen marka reer afgaabna hadda way qaadeen cawliyahana waxaan ka codsanaynaa gabadha inay sii qaadaan insha allahu si odayaasha ay sheegeen sababtoo ee kursigan countiga wumereeb iyo sanad iyo gavana waa saddexda kursi reer afgaab hadda wax ka taagan oo gabadha ka hel ma jiro marka cawliyahana waxaan ka codsanaynaa inay u xurmeeyaan insha allah kuuro badan waa haynaa marka ugaas waa mahadsanta insha allah haddii annaga waa un mahadnaq unbaa nii wadna saad sheegteen dadka siyaasadda u ololay gabadhan hadda soo istaagtay waa gabadhii 14 kursigaa sheegatay gaarisa 14 13 baa ku horreysay hadda baraha bulshadana waxaan ku arkay wax cusuban oo soo socda afgaab hal un baan dhihi kursigan waa kursi gaarisa county boodaay ilaa i bannaani baa looga codeen kursi yar oo nyaanyo oon macno laheenoo MCA laguma qowrici karo kursi MB ama afgaab ha raadi ama cawliyahan ha raadiyana laguma qowrici karo annaga county miiskeeda wax lagu qaybsan kursigan gorgorton oo kursi ka hoosa sideedaba maba geli karo cawliyahan baan ka mid nahay sida la sheego cawliyahan annaga waxaan ka baryaynaa hadda annaga haddaan ree afgaabnahay waqtigan baa noogu horeysaa kursi aan sheegana inay nagu sharfaan ma wax afgaab soon qaado hadal qabaa jira haya hadda marka waa taydi anina hadla soo raalli kama tiin marka isku niyad noqoteen waxaan u malayn reer afgaabigu isku niyad noqdeen niyadiisa waa garanaysiin maalin dhaweed markaan meeshan fadhinay oo Ibrahim iyo Xasan Kabe aan ka hadlayna hal ruux oo reer afgaab oo mowqif kala duwan ku hadla ma jirin mowqifkiina ma toosamayn kiina wuu inii hergelay waxaan rabaa gabadha haddii reer afgaab ay u soo istaagtay oo afgaab soonqaad uu wax sheegtay gabadha sagaalka dabe cawliyan gabdhaha ka mid umay tahay haddii cawliyahan intuu noo garto uuna reebo gabdhaha cawliyahan bay ka mid tahay maxaa yeelay gabar intay istaagtay ayadoo inanoon la guursanin kursi ku guulaysata ayada maanta uguma horeyso gabadhii ninka la yidhaahdo faarax kaahiya cabdille waa sanata soo saa ma ogidin waa gabar cawliyahan qofka nasiibkiisa lama hor istaago damaciisana lagama hor umaado maadaama ay wax soo sheegatay oon reer afgaab u keennay reer afgaab hidiinta 12 qoys ee reer afgaab ee gabadha maanta dhex taalla waxaan u malayn duqi reer dalal wuu fadhiyaa waa qaasin qaar bashiir waxaa fadhiyaa duqi reer fuqududub kii reer cabdillaah fadhiyaa kii reer xirsi baa fadhiyaa kii reer warsamaa fadhiyaa qoys afgaab oo 12 qoys ee afgaab duqeydoodii hidiintoodii ka maqan ma jirto uurgeel uurjiif hooyadii ku gowracane gabadhaasay markuu geedka reer fuqududub ka soo tagtay geedka reer afgaab bay joogtaa geedka reer afgaab wuxuu soo qaado meena ku khasban wax maanta ay kaga duwanta ma jiro waxaan u sheegaynaa jiifka senior jiif cali cabdiraage waxaan kuu sheegaynaa gabadhan gabar gacanta reer afgaab aad soo gelisa waay talada reer afgaab bayna ku go'daa wax reer afgaab maanta ay fuqududub way ka soo gudubtay
caycay dhaafta ay geeska qabeen markay fuqududub iyo beriye joogtiyo mahad jurxan iyo saleebaan markaa reebis hadday lahayd markaasaa la reebi lahaa hadda saacaddan maanta la taagan yahay 12 qows reer afgaab bay gacantooda ugu jirtaa cawliyahana waxaa u gudbin reer afgaab markaan u gudbinane tala alla taladii noo soo baxdo ay ku go-on tahay oo reer afgaab haddaan nahay cawliyahan aan ku tashanno reer afgaab baa soo qaadi go-aanka reer afgaab baa maanta aaminay abay nabad abay gabadhaas khadra cali cabdi aniga waxaan hadda inii sheegi oon inii ballan qaadi kursi baan soo gelin lama dhahayo laakiin meesha u dambaysa turcadiya jibraa'iil geedka looga taliya anaa inii fadhiyaa anaana geyn anaana gogosha u qaadi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer afgaabo waa salaamantihiin hadalka waan soo gaabin aniga waxaa liigu dhiibay mikrofoonka inaan mahad celiyo inaan hadal kale sii galo iyo xamaaso kale aan sii galana ma jirto haddaan reer fuqdudoon layidhi waxay rabteen waa nila qaadna afgaababa qaada alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa mahad iska leh marka waa nii mahad celinaa reer afgaabow waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin si aad doonaysa haddii reefka uu kuu yeelo waa farxi si ay armadi lagu yeelo waa farxi hadalkao dhan baa kaa dhumi marka reefka saa rabnay bay noo yeeleen reefka horta way mahadsan yihiin reefka way mahadsan yihiin macal ogaaskooda way mahadsantihiin waa mahadsantihiin walaalayaalow marka anoo weliba odaygii bahra sacade aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu badan reefkaabo horta waad mahadsantihiin boqol waad mahadsantihiin ilaahayna ha idin sharfo waxaa idin sheegaya ani khasra qaada idinma dhahayo saad khasra u qaadeen afgaab dhexdiisa maslaxadiisa ka shaqeeya mid noqda tiim daaya meel kasta saan u gay ina cabdi cali guhaad saad uga reebteen saad khasra u dahayn gabadh dambe ma istaagi karto meeshaad ku dhaqaan afgaabow lilaahi adoo qaba ku dhaqaan ree afgaab waxaan ka filay waan helay maanta maxaa yeelay ilaahu dabka annaga kii dam ka dhigmay Soomaaliya ku ducaystaa maxaa kursiga ree afgaab weliga hataa aan niyo ku qabanin ee gabadha abtay u tahay ay sheegatay ree afgaabna saan ka filay way ka soo baxeen ree awoogay baa la soo bilaabeen aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan rabaa hadalkii meeshan laga sheegay in laga dhabeeyo oo ilaa ay meesha ugu dambayso ilaa santuuqa inay gabadha tagtaan rabaani shirka maanta u maamay wuu soo gabagaboobay waxaan rabaa gabadha khadra cali cabdi raage inay tolkeeda u mahadnaqdo hadda waxaan rabaa marka mikrofoonka inaan ku soo dhoweeyo khadra qariib waan salaamaya dhammaan tolkaygiiow waa dee awoow iyo abti iyo adeer iyo waxaan idhaw maba ka saayay heel walba waad iga dhasheena marka salaamantiin horta sidaad u soo ajibteen aad meesha si sharafta leh aad igu soo qaadeen idmaba ka saayo farxad darteed saan u hadlay maba ka saayay qofka ammaan markii laga baday waa iduu iska farax badan yihiin waa ogtihiine marka odayga hore afgaaba wuxuu dhahay aaqara markii lagu dhaho man rabbuka gijigiji maree afgaaba talkuu noqon buu dhe marka hadda anigu waxay dhaheen maxaa u meeray ka doonayo MCA ma noqotid ma afgaaba talkuu noqon idii talkii waa aragtay afgaab tal uu noqon maxay dhiman oo tagay waxay soo aragmala Soomaa marka aad baad u maasantiin farxad darteed horta waxaan dhahnaba ka saayay alxamdulillaah haddii garabka maanta sidan lii garab taagan yahay wax iga dhimanba ma laha hataa haddii aan soo dhaco farxad darteed baa aan u arkaynin inaan dhacabo gool sidii lii soo qaadaa u arkaysiin Soomaa alxamdulillaah marka xaaladda adduunku waa afgaabi in lagu qurxiyo inta lagu qurxiyo dhanba waaba kunba garab taagan maxaa iga dhiman marka waxaan rajaynayaa insha Allah siday ii garab istaageen inayna cawliyahan sida ay igu garab istaagaan afgaab kulay inta maba iga haraya cawliyahan markuu ii garab istaagana xoog ay maanta ii muujiyeen inay ii muujiyaan man jeclaan oo ilaa ay ogaadeen naftirkiisa waan ka dhashaba hataa cawliyahan bas kama dhalanin waxaan sheegayaa Garissa County waa ogaadeen iyo wax kasta degan waxaan u maleenba ogaadeen cid aan ka dhalanin ma laha Cabdullaahi dhalay cawda dhinac wiiga dhalay
meel wax dhiga dhalinba malaha wax iga nasiib badan malaha siduu museyga sheegay marka assalaamu calaykum marka intaasaan ku soo xiri